بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، meel kastoo ay joogtaan waxaan idin leeyahay jamco wanaagsan. waa maalin jamco ah, waa maalin sayidul ayaam, waa maalin farxadeed, waa maalin ay ku habboon tahay muslimiinta inay isku tahniyeeyaan oo ay isbooqdaan, ay iska warhaayaan, oo masaakiinta ducafada ah in wax loo qabto ay aad u habboon tahay. waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ay aad ugu weyn tahay. waxaa la rabaa marka inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala jalla jalaalah aan weynayno, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan xusno, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsoono, oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam aan ku salino, oo aan adeecno, aan yeelno warka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. waxa naga reebayna aan ka reebtoonaano, waxa uu na farayna aan fartoonaano. taasi waxay noqonaysaa waddadii aan ku hanuuni lahayn, hanuunka gadaashiina aan uga hagaagi lahayn waddada jannadana gey lahayd. walaalayaal, maanta waxaad moodaa in la daciifsaday, la yareystay jacaylka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. nebi maxamed oo la jeclaado waa wax weyn walaalayaal, waa daba, waa daawo, waa waxaan la heli karin walaalayaal. waxaa looga baxayaa cariiriga, ayaa looga baxayaa muraadaadka, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka saqiraayo. marka waxaa la rabaa inaan ku salino wax badan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam.